ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب. maanta geedahan ay imaaday geedkan siduu kusoo baxaan arkaynaa. haddan boosta ka soo qaaday baakadkaana ku imaaday waa xirayaa markuu siduu kusoo baxaan arkaynaa insha allah. iyo waxaan ka damacsanahay ba arka saasa meeshaan subay ramajada korkeeda aarayna buusooyinka dhan ku safro aan tusaale birti saasa kusoo baxday maasha allah. boorsooyinkooda dhan waa surtay sida ujeedaanba qurux. hadda waqti badan ma igu qaadan birtaasi armaajada un baan suray kabacdina boorsooyinka dhan baa ku saftay. tan labaad boos dhan baa siif garaystay. marka hore armaajo baan ku ciri jira boorsooyinka dhan ayada dhan wayga jabay. hadda boorsada buluuga wayga jaban tahay. marka boorsooyinkii saa haddii kaa jaban qurux ma ahan lacaga kasoo bixiso sooma. marka boorsooyinkiina si oo meel oo siifna noogu yaalaan waqti badanna aan uga siif garayno raadin guriga. hadha marka meel socod boorsooyinka dhan isku soo gudinaysaa boorsa raadinaysaa. laakiin hadda waad ogtahay meesha boorsadaada taalo horaa daf u siisanaysaa. tan labaad waxa waayaan dumar iyo boorsa iyo kab waa la isku daayay. marka xataa birtan haddii kuu qaadi weyso qaar susuran ku dhaha birahan waa badan tahay. birtan waa weyn tahay qaar sursuro inta kuu qaado inta kalena meel ku xaraysa kale aad ogtahay. laakiin haddaan dhahno boorsooyinka dhan armaanja ku ciriirinayna waa jajabaysaa. hadhowna boorsooyinkii foolxumo iyo khasaaro iyo adooba waqti u helay markaad meel aadaysid. marka waxaan dhihi lahaa boorsada birtaan dukaanan ka dalbaday. marka iska dalba birtaan oo kale haddii oo guriga ciriir ku yahay. laakiin haddii oo guri weyn haysatid ma ogi. laakiin wadamadan waa iska naqaanaa guryaha dhan ciriir yihiin. marka alxamdulilah hadda maanta waan faraxsanahay. boorsooyinka dhan waan ogahay biri meesha u raacan lahaa.